asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan maalin wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo qodobadii sportska ugu dambeeyey fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan sabscribe inoo saar saaxiibada joogtada nagu xira muuqaalka noo laagaray waana ku mahadsantii wanaagga noo muujisin weli ciwaanada waxaa tartanka loo yaqaan UEFA Nations League iyadoo talyaaniga ay noqdeen xulka saddexaad usoo baxaan samafiinaalaha kadib markii xalayta laba gool ibar kaga badiyeen xulka Hungary ciyaar ay safar ahaayeen oo talyaaniga guusha ay siiyeen labada ciyaartoy kale Gianluca Raspadori iyo Sakal Federico Di Marco labada qayb oo kala duwan ayay shabaqa gaareen xulka Hungary oo garoonkooda la joogo waxay u baahnaa inay guuldaro ka fogaadaan si ay ugu soo baxaan samafiinaalaha UEFA Nations League laakiin taasi ma aysan dhicin oo macalinka talyaaniga Marco Rossi xulkiisa waxaa ka badiyay xulka talyaaniga Robert Mancini hogaamiyo haddaba saaxiibada qiimaha badan talyaaniga waxay kaga dhigantahay groupkan kaalinta koowaad ay kaga soo baxeen samafiinaalaha imaadeen maadaama ay la imaadeen 11 dhibcood 6 kulan ciyaareen Hungary 10 dhibcood la imaadeen Jarmalka waxay la imaadeen 7 dhibcood Ingiriiskana waxay la imaadeen 3 dhibcood oo Ingiriiska groupkan gabi ahaanba way ka hareen waxay u dhaceen Serie B-da tartanka dambe markii la isugu imaan doono Ingiriiska ma joogi doona League A qaybta lagu tartamo koobka ee Serie B-da aadeen saaxiibada qiimaha badan talyaaniga waxay kaga dhigantahay waa guushii ugu horreysay kusoo gaaraan magaalada caanka ee Budapest tan iyo sanadii 1996 waxaana ciwaanka qaatay goolhaya Gianluca Donnarumma oo kulankan sameeyay badbaadooyin cajaa'ib badan dhinaca kale Robert Mancini xulkiisa waxay kaga dhigantahay haatan inay kula biireen Croatia iyo Netherlands samafiinaalaha UEFA Nations League caawana waxaa la sugi doonaa Spain iyo Portugal midkii soo baxo taasoo ay ka dhigantay afartaas xul ayaa koobka u tartami doonaan isla groupkan labada xul ee isla hareen Jarmalka iyo Ingiriiska kulan madadaalo ku dhaheen waxay ku ciyaareen garoonka Wembley ciyaar kusoo ilaad 3-3 inkastoo qaybtooda ciyaarta dabcan labada xul shabaqa aysan gaarin laakiin second half-ka dambe wuxuu ahaa kulan waali ah oo Jarmalka laba gool ibar ayay geeyeen xulka Ingiriiska ayadoo Gundogan goolkulaha shabaq ku hubsaday Havertzna u labeeyay laakiin Luke Shaw iyo Mason Mount Ingiriiska ciyaarta ku soo celiyeen ugu dambeyntii kulanka qadar 7 daqiiqo ka harsan Ingiriiska dabcan guushi waxaa siiyay Super Harry Kane oo goolkulaha shabaq ku hubsaday laakiin saaxiibada qiimaha badan Jarmalka ciyaarta ku soo laabtay kulankan 3 daqiiqo ka harsan waxaa barbareeyay Kai Havertz ciyaartan waxay ahayd ciyaar waali ah qaladaadka ay galeen Harry Maguire oo daafaca ka ciyaaray iyo goolhaye Nick Pope ayaa sabab u ahayn Jarmalka dabcan dhibicda ay ku heleen garoonka Wembley saadarteed waxaa la Southgate xulkiisa waxay ka baxay mar koowaad gool la'aantii u diiwaan gashneed maadaama haatan 3 gool ee shabaqa gaarsiin waana markii ugu horeysay UEFA Nations League tartankan shabaqa 3 gool gaarsiin laakiin Ingiriiska si niyad jab ku dhahan ku soo ildaysteen 6 kulan ciyaareen waxay la imaadeen 3 dhibcood saaxiibada qiimaha badan Harry Maguire wuxuu baxshay raali gelin maadaama goolkii koowaad ee dabcan rigoorada asiga uu qalad ku lahay midkii laba Havertz out of position ahay oo Havertz uu san raacin kadib markii kubad xood oo banaan ka soo looba Havertz uu dhashay labada gool waxaa qalad ku lahay Harry Maguire xilli ciyaareed qarow ku dhahan haddana wuxuu sii galay qalad aan la qaadan karin dhinaca kale tan goolhaya lagu magacaabo Nick Pope asigana qaladkiisa waxbuu ka lahaa markii la eego kubaddii lagu barbaray Ingiriiska inuu dabcan soo tufay oo goosh hortada dhigtay kadibna Havertz uu ku ciqaabay overall habeen waxay wada Ingiriiska ee character fighting sameeyeen ee dagaalameen laba gool ka soo kabteen 3 gool la imaadeen laakiin waxaa leeyahay Harry Maguire iyo Nick Pope dabcan ciyaartooyda Ingiriiska garabkooda ka baxeen oo Southgate xulkiisa guusha ugu horeysay loo diiwaan gelin lahaa u diideen ciyaar barbaro kusoo ilaatay kulamada caawila ciyaaraha markii aan firin waxaa jira kulan kala baxnaa Portugal iyo Spain iska hor imaan doonaan bilaabanaya 9:45 fiidnimo xilliga Geeska Afrika haddii Portugiiska ay guuldaro ka fogaadaan ayaga u soo bixi doonaan UEFA Nations League semifinalka haddii Isbaanishka caawi ay guuleystaan ayaga soo bixi doonaan dhinaca kale Switzerland iyo Czech Republic kulanka dhexmaray wuxuu bilaaban doonaa 9:45 fiidnimo ee xilliga Geeska Afrika laakiin labadan xulba kaalintood uma tartamayaan oo way hareen dhinaca kale markii aan firin waxaa jiraan sidoo kale caawa ciyaaro saaxiibtinimo xulka Brazil oo World Cup ku diyaarinaya waxay wajihi doonaan Tunisia kulan bilaaban doona 9 fiidnimo ee xilliga Geeska Afrika dhinaca kale Sacuudi Carabiya Mareykan kulan dhexmaray asigana wuxuu bilaaban doonaa 9 fiidnimo ee xilliga Geeska Afrika waxaan kaloo soo qaadan karnaa Qatar oo martigeliyaasha koobka adduunka waxay la ciyaaraan Chile kulankan wuxuu bilaaban doonaa 8 fiidnimo xilliga Geeska Afrika halka Argentina Haifa Lion ayagana la ciyaari doonaa Jamaica kulankan caawa wuxuu bilaaban doonaa 3 habeenimo ee saq dhexe ama caawa 9 saac habeenimo ee xilliga Geeska Afrika bal markaan aan fiirino maanta jaraa'idada maxaa ku xadhan kuwa Ingiriiskan ku bilaabeena Coventry waxaa lagu xadhay Heroes iyo Villains ee loo kala saaray kuwa geesiyaal ah iyo kuwa dabcan xumaan ku sifoobeen oo Ingiriiska garabkooda ka baxeen sida The Mirror ee leedahay geesiyaasha waa dabcan markii la fiiriyo Harry Kane iyo sidoo kale xidigihii dagaalameen oo 3 gool keeneen laakiin kuwa Villains ka noqdeen waa Harry Maguire iyo sidoo kale Nick Pope oo flop noqdeen weli warbaahinta Ingiriiska waxay leeyihiin haddii Harry Maguire mar kale Southgate uu la imaado asiga isfashalin doona inkastoo Maguire raaligelin uu bixiyay marka maanta Coventry inta badan waxaa saaranbo dabaaldeg iyo niyad isku darsan raggii shaqaysteen iyo raggii garbahooda ka baxeen marka waxaa leeyahay Ingiriiska waa inay san wax iska bedelaan haddii ay doonayaan guul waa inay dabcan noqdaan ciyaartooy isku duuban oo qaladaadka ay yareen saa darteed marka Nick Pope iyo Harry Maguire pressure badan saaran
sida caadiga Kane iyo xulafadiisa kale tan kaalintooda ay qaateen qodobada goosig markii aan firin ciwaanka weyn waxa haysta kooxda Newcastle oo markaan doonteen wiilka Ukraine garbaha ka duulay Mikhail Mudryk oo 22 jir oo koox kasta baadi goob ugu jirto kana tirsan Shakhtar Donetsk waxayna Newcastle diyaarinayaan 50 milyan oo pound dalab inay ka gudbaan xidigan si ay dabcan gacanta ugu soo dhigaan bisha Janaayo sida haatan shabakada The Eye News ee soo daabacday dhinaca kale Jude Bellingham oo 19 jir oo Borussia Dortmund Ingiriis qadka dhexe kaga ciyaaro wuxuu sheegay inuu ku mashquulsan yahay oo kaliya ka qayb qaadashada World Cup-ka iyo soo kale caawintiisa kooxda Borussia Dortmund xilli Liverpool Real Madrid isku haystaan waliba Real waxay sheegeen xagaaga nagu soo folle wiilkan number 1 target inuu yahay sida marka ay soo daabacday dhinaca kale agaasimaha farsamada kooxda AC Milan Paolo Maldini wuxuu sheegay Rafael oo 23 jir inuu kooxda sii joogi doono xilli dabcan Chelsea iyo kooxo kala duwan baadi goob ugu jiraan ciyaaraankan laguna wada contract cusub qaranka inuu ku duugo sida Calcio Mercato iyo The Mirror ee daabacayaan dhinaca kale Chelsea waxaa ka go'an bisha Janaayo inay ku soo qaataan 50 milyan oo pound Denson Dumfries oo garabka midig ka ciyaara kana tirsan Inter Milan laakiin waxa 26 jirka markay gataan Chelsea Inter waxay u soo ogolaan doonaan 6 bilood inay haystaan oo xagaaga dambe u imaan doona garoonka Stamford Bridge sida Corriere dello Sportivo ee daabacayso sidoo kale Denson Dumfries oo PSV Eindhoven hore ugu ciyaari jiray asagana wuxuu dhahay aad iyo aad ii soo jeed sheekada ku aadan Chelsea Man United inay dabcan xiise gaar ah qabaan laakiin wuxuu leeyahay waxaan diirad saaray caawinta kooxda Inter sida The Telegraph uu sheegay dhinaca kale Manchester United waxaa ka go'an soo qaadashada Emiliano Martinez oo 30 jir ah oo Aston Villa Argentina goosh u qabto waa haddii David De Gea qandaraaska dhin uu diiday sida haatan Football Insider ee daabacayso dhinaca kale Inter Milan waxay ka qoosay daaficida Milan Skriniar kadib markii qandaraaska dhin uu ka diiday 27 jirkan waxaa lagu wadaa Janaayo inay qaadato kooxda PSG ayadoo la ogaay xagaagii dhawa inay ku dhawaadeen qaadashada naadigan Faransiiska difaacan Slovakianka laakiin u suuragali waasay sida la Gazzetta dello Sportivo ee daabacayso dhinaca kale Real Madrid waxay qorsheynaysaa xilli ciyaareedkan markuu soo ilaa dib inay u soo ceshtaan Brahim Diaz oo 23 jir amaah kula jooga kooxda AC Milan maadaama Marc Asensio 26 jir uu ka tagayo xitaa waxaa la sheegay Asensio heshiis ay dabcan hordhac wuxuu la gaaray Barcelona oo 4 sano ka qaadanayo sida haatan shabakadaha Football Hispania iyo RMC ay soo daabacayaan sidoo kale qodobada kale soo qaadan karna waxaa qaybka Barcelona Liverpool waxaa la wada xaajoodka way si anba qaadi doonaan oo ku aadan bisha Janaayo inay isdhaafsadaan Memphis Depay oo 27 jir ah iyo Roberto Firmino 30 jir ah sida Sport ay daabacayso dhinaca kale kooxda Liverpool meesha kama saarayso Janaayo inay soo qaataan Enzo Fernandez oo 22 jir Argentinas ah qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Benfica inkastoo ciyaaraankan ay dul taala 120 milyan oo euro sida shabakadaha oo joogo iyo Liverpool ee koox ay daabacayaan dhinaca kale daafaca Belgiumka Jason Danier oo 27 jir oo koox la'aan ah tan iyo markii Olympic Lyon ee qandaraaska kula jira uu ka dhacay hadda waxaa la sheegay wuxuu ku biiraa kooxda United Arab Emirates ka dhisan ee lagu magacaabo Shabaab Al Ahli inkastoo Wolves qalqaar ugu jirtay uu iska diiday oo wuxuu aaday Imaaraadka sida shabakada L'Equipe ay daabacayso dhinaca kale ciyaaraankii hore xulka Senegal qadka dhexe kaga ciyaar jiray Salif Diao wuxuu ka dhawaajiyay Sadio Mane 30 jir sababtoo Liverpool kaga tagay waxay ahayd in jacayl iyo xushmad uu ka waayay tababara Klopp kadibna uu ku biiray kooxda FC Barmujan xagaagan sida Liverpool ee koox ay daabacayso bal markaana tagna dhankaasi dabcan gudaha Talyaaniga maxaa maanta la hadal hayaa Talyaaniga waxay leeyihiin waa faraxsanahay sina waa u shaleynayna sababtoo waxay u faraxsan yihiin UEFA Nations League semi-final u soo baxeen waxay ka shaleynayaan World Cup-ka bilaaban doona November ilaa December soconayna inay stage-kaas weyn ay ka maqan yihiin haddii aan ku bilaabno jaraa'idka caanka La Gazzetta dello Sportivo waxay leeyihiin Talyaanigu aad u faraxsan kadib markii Nations League ee groupka dhimashada kaalinta koowaad kaga soo baxeen xalayta Budapest ee tagan Hungary 2 gool eber kaga soo badiyaan Raspadori ayaa mar kale ciwaan ka qaatay iyo Dimarco oo shabaqa gaaray balse Roberto Mancini wuxuu leeyahay waxaan aad iyo aad kaga xumahay World Cup-kan ka maqannahay oo wuxuu leeyahay ciil ayaga hay sababta wuxuu dhaqaaladan galnay ayaan ku seegnay dhinaca kale Donnarumma wuxuu leeyahay dhaawacana gaar waa mid muuqdo wuxuu dhahay awoodeena way muuqataa laakiin qalada anaga aan galnay ayaa u sabab ka dhawaajiyay inaan ka maqannahay UEFA Nations League sababta wuxuu leeyahay Talyaaniga hadday xun yihiin groupkii dhimashada ee kula jiraan Jarmalka iyo Ingiriiska iyo Hungary kaalinta koowaad ma aysan kaga soo bixi lahayn dhinaca kale waxay leeyihiin Inter Milan oo quus taagan sababtoo difaacooda Milan Skriniar uu ku adkeenaa wuxuuna ku biiraa Paris Saint-Germain bisha Janaayo halka Brozovic muddo bil uu ka maqnaan doono Juventus waxaa la isbedel xoogan lagu sameyn doonaa sanadka cusub Cuadrado Rabiot Di Maria xidiga badan oo kooxda joogan waxaa laga dalbaday mushaaraadka inay dhimaan halka sidoo kale jaraa'idkan ay dabcan waraysi la yeesheen Vincenzo Montella weeraryahankii hore ee Sampdoria iyo dabcan Roma marna Milan iyo Fiorentina kooxa kala duwan macallin u noqday Montella horyaalku ka hadlay wuxuu dhahay Napoli beautiful Napoli wuxuu dhahay koox qurux badan Milan wuxuu dhahay koox awoodeeda dhameystiran tahay halka Roma wuxuu dhahay waxay soo xasuuseen ka dhawaajiyay sanadii 2001 horyaalka ay qaadayeen hamiga iyo diiradii ka muuqato ka dhawaajiyay sidoo kale waxay jaraa'idkan ka hadleen kooxaha Serie A xilli ciyaareedka dhex muuqdaan Lecce Torino iyo Empoli waxa ugu wacan dhalinyarada adeegsadeen oo ciyaartooyda Talyaaniga inta badan jaanis siiyaan Corriere dello Sportivo eegno waxay coverka weysiin Raspadori waxay dhaheen kani kaalintiisa u qaadanaa Talyaaniga asiga garbiis ku wada laakiin waxay dhaheen
wad ee record alla maxaan shalaynaynaa sababta waxaan ka shalayna ka dhawaajin qaladaadkii aan galnay israabkii koobka adduunka ee talyaaniga ka hareen hadda talyaaniga businesska UEFA Nations League waa iska soo gabagabeeyeen samafinal usoo baxeen laakiin ciil wuxuu ka hayaa inay daawado ka noqon doona koobka adduunka qadar ka bilaaban doono balse Mancini wuxuu dhahay aan iska hilmaamno waxaa qadar ka socdo kaliya wuxuu dhahay markii sanadkan uu dhamaado aan isku imaano wuxuu leeyahay sanadka dambe ee UEFA Nations League ayaan usoo jeesan doonaa sidoo kale waxay jaraa'idkan qodob ka soo qaateen in caawa waxaa la heli doonaa wadanka afraad ee dhammaystiri doona samafinalaha UEFA Nations League waxay noqon doonaan Spain iyo Portugal midkood ayadoo horey Netherlands Croatia iyo Talyaaniga usoo bixeen sidoo kale jaraa'idkan waxay qodob ka soo qaateen ka hadleen Rossoneri iyo ciyaaryahankooda Rafael Leo xilli ciyaaryahankan uu doonayo kooxda inuu sii joogo laakiin wuxuu dalbanaya 7 milyan ilaa 8 milyan oo euro farsamadaas ayaa loo baahan in la xaliyo xilli waxaa leeyahay dabcan Chelsea iyo Manchester City ilgaara ku aan ciyaaryahankan dhinaca kale waxay Corriere dello Sportivo ka hadleen galawdii Lotito oo kooxda Lazio iskale wuxuu noqday senator ama senad ayuu noqday kadib markii doorasho deegaanku guuleystay wuxuuna dabcan matalaa xisbiga midigta dhexe oo xaq jirka ayuu kusoo baxay ninkan Lotito oo Lazio iskale wuxuu dhahay kooxda Lazio ma fasaxay siyaasadda iyo sports waa isku wadana ayuu ka dhawaajiyay dhinaca kale Tutti Sportivo markii aan fiirin waxay coverka siiyeen ciyaartoyda Argentina ee ka tirsan kooxda Juventus waa Paredes iyo Di Maria oo xilli hore inay xulka Argentina imaadaan laga dalbaday taasoo le dhibaatay ku noqon doonta Juventus kulamada ugu dambeeya horyaalka way seegi doonaan koobka adduunka 20 November oo bilaabana laakiin hal toddobaad ka hor laga rabaa kooxaha inay soo fasaxaan ciyaartoyda halka Argentina ilaa waxaan u baahnaa 2 toddobaad ka hor in la soo fasaxo Di Maria iyo Paredes si waxay dheen preparationkeena u sii wadana taasoo culays ku noqon doonto Juventus dhinaca kale waxay dheen Gianluca Raspadori oo mar kale kaalintiisa qaat Talyaaniga guul muhiim ah siiyay Dimarka ciyaartan uu soo gabagabay goolkiisa koowaad Azzurri shabaqa gaarsiiyay Donnarumma wuxuu sameeyay habeen aan caadi ahayn kadib markii wax kasta ay sameeyeen Hungary oo la ekaaday ciyaar Talyaaniga 2 gool eber ku badiyeen waxay leeyihiin Talyaaniga way dhowr cadeynayaan UEFA Nations League u soo baxeen laakiin hoos ayay dabcan ka xun yihiin qalbigooda maadaama ay sageen koobka adduunka waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen waxaa la jooga waqtigii Aslani uu kaalintiisa qaadan lahay maadaama Marcelo Brozovic muddo bil maqnaan doono waxaa loo arkaa ciyaaraanka inuu shakhsiga saxda ah buuxin karo booska uu banay Brozovic xilli ciyaareedka hore Inter markuu Brozovic ka dhaawacmay kulamada ka maqnaa dhibco muhiim ah lumiyaan laakiin markaan Simone Inzaghi wuxuu rajeynaa Aslani inuu kaalintiisa qaadan doono saaxiibada qiimo markaan dhankaas iyo dabcan gudaha Spain maxaa maanta laga hadlayaa wax kale lagama hadlayo waxaa laga hadlaa ciyaarta finalka ah ee dhexmari doonto Portugal iyo Spain shabakada Marca waxay dhaheen waxaa jira imtixaankii finalka oo coverka waxay siiyeen dabcan kulanka big matchka caawa dhexmari doona Spain iyo Portugal waxayna dhaheen Luis Enrique qaladkii aa gashay kulanka Switzerland dib u sax waa shaqo adag in lagu soo badiyo gudaha Portugal laakiin Enrique wuxuu leeyahay wax kasta waan sameyn karnaa waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen ka hadleen wiilka lagu magacaabo Vinicius horumarka uu sameynayo waxay dhaheen haatan wuxuu ku qaanad yahay ama ku miis yahay markii la fiirshay Kylian Mbappe Haaland asigana waxay dhahaan hogaamiye kale kooxda Madrid galbihiisa ku wado dhinaca kale waxay shabakada Marca ka hadleen Arujo iyo qalliinka lagu sameynayo ayadoo markii ugu 3 bilood uu garoomada ka maqnaan doono waa daafaca Barcelona iyo xulka Uruguay dhinaca kale Sporting markii aan fiirino waxay dhahaan caawa final adag ayaan Portugal la ciyaari doona waxay ku hadlaan magaca Spain waxay leeyihiin CR7 waa in laga hortagaa iyadoo Pedri iyo xidigaha Isbaanishka laga rabo inay kaalintooda qaataan ciyaartan epic match wuxuu ku tilmaamay kulan taariikhi Enrique wuxuuna dhawaan badin karnaa haddii aan wuxuu dadaalkeena diiradda saarno inkastoo jaraa'idkan ay leeyihiin Portugiiska ugu soo orod ma ahan dhinaca kalena waxay ka hadleen Arujo dhaawac soo gaaray muddada garoomada ka maqnaan doono 3 bilood garoomada ka maqnaan doona qodobka caalamiga FIFA u yaalno xitaa ciyaartoyda markuu soo dhacmaan kulamada saaxiibtinimo ee FIFA soo agaasinto magdhow ayaa la siiyaa kooxaha waxaa la leeyahay haddii dhaawac uu ka badan yahay muddo 28 cisho sidaa darteed Arujo dhaawaciisa oo noqon doono 3 bilood Barcelona waxay ka rabaan FIFA magdhowgaasna wuxuu noqon karaa dabcan laga dhawaajiyay 4 milyan ilaa 5 milyan oo euro ama nidaamka caadiga waxaa la mari doonaa Arujo mushaaraadka uu qaato qayb ka mid ah ayaa bixin doonaan FIFA sidaa darteed marka Barcelona hadda waxay furaan galkii dacwada ee FIFA lacag kaga rabaan maadaama ninkan ciyaaraha FIFA kusoo dhacma agaasinto oo dabcan kulamada saaxiibtinimo ah haddii aan fiirino shabakada caanka ee Mundo Deportivo waxay weli wadaan afaara qabiile wadaan sababta coverka waxay siin labada ciyaartooy ee Catalanka ah waa Pedri iyo Gavi oo waxay leeyihiin caawa waxay diyaar u yihiin inay meel saaraan Bernardo Silva asigana waxay leeyihiin kooxda Barcelona imaan karo sidaa darteed marka labadan wiil ayay dabcan inta badan diiradda saaraan jaraa'idkan waana labada wiil Luis Enrique aan laga marin qadka dhex ciyaarsiiyo sidoo kalena waxay leeyihiin Isbaanishka caawa inay guuleystaan si aysan kaga harin asaagooda samafinalaha usoo baxeen sida Talyaaniga Holland iyo Croatia waxay kaloo ka hadleen dhaawac Arujo oo Barcelona musiibo ku noqon kara maadaama 3 bilood garoomada ka maqnaan doono ciyaaraankan wuxuu ka xun yahay koobka adduunka inuu seegayo xilli dabcan Uruguay World Cup ka qayb qaadanayaan dhinaca kale tan ugu dambeyntii waxay shabakada Mundo Deportivo ka hadleen Barcelona oo ku soo laabatay wadadii lagu yaqaan shacabiyada taageerayaasha ee garab istaagan maadaama xilli ciyaareedkan bilowga ah average-ka haatan ku dhawaad dabcan laga soo bilaabo Agosto ilaa September kulamada la ciyaar labada bilood ugu horeyso Camp Nou wuxuu noqday garoonka lagu daawasho badan yahay
top 5 ligiska ama shanta Yurub ugu caansan sababta celilis ahaan kulan kasta gudaha garoonka waxaa soo galaan 83,000 oo taageero leh halka dabcan Borussia Dortmund ku xigto oo ku dhawaad 81,000 oo taageero kulan kasta gudaha garoonka ay soo galaan FC Bayern Munich 75,000 ayaa average ahaan kulan kasta gudaha garoonka soo galaan Manchester United 74,000 AC Milan 72,000 San Siro kulan kasta soo galaan halka Inter Milan 70,000 ay soo galaan gudaha garoonka sidoo kale Olympique Marseille liiskan ku jirto 62,000 oo taageero leh kulan kasta u soo galaan sidaa darteed marka Mundo Deportivo waxay leeyihiin Barcelona taageeraashooda dib u soo laabteen waxaana ugu wacan saxiixyada xagaagan la sameeyay iyo guulaha xilli ciyaareedkan kooxda ay ku bilaabatay ugu dambeyntii shabakada AS markii aan fiirna ayagana yaana ka tagin waxay coverka siin ciyaartooyda Spain diyaar garow adag ku jiraan waxay dhaheen tonight waxaa jira hal finalka natiijada ka soo baxdana waxaa laga rabaa Isbaanishka dhankooda inay soo marto inay guuleystaan si ay dabcan groupka ay ku jiraan kaalintooda uga soo baxaan sidoo kalena Yurub inteeda kale wax la qaybsadaan guud ahaan barnaamijkan ayaa wargeysa Yurub ugu caansan ciwaanada sameynaya qodobada sports ugu dambeeyay intaasan ku soo ilaalinayna fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saara oo ku mahadsantihiin daawashadiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu